kaalinta tobnaad waxaa gashay diyaaradda Lufthansa oo duulimaadkeedii ugu horreeyay bilowday 1995 waxaana laga leeyahay Jarmalka waxay u kala duushaa 78 dal oo dunida ah. Nambarka 9aad Qantas Australia waa diyaaradda ugu weyn Australia waxayna u kala gooshtaa 40 dal oo dunida ah iyadoo duulimaadkeeda bilowday 1921. Nambarka 8aad waxaa gashay Eva Air oo laga leeyahay Taiwan. Diyaaraddan Taiwan waxaa la sameeyay 1989 waxay samaysaa 40 duulimaad oo caalami ah iyadoo u kala gooshtaa Australia, Europe iyo Waqooyiga Ameerika. 7 Turkish Airlines oo la sameeyay 1943 waa diyaarad haysata rikoor caalami ah 261 dal ayay u kala duushaa. Lambarka 6aad Etihad Airways waa diyaarad laga leeyahay Imaaraadka waxaana ay duulimaadkeeda bilowday 2003 waana diyaaradda labaad ee ugu weyn Imaaraadka Carabta waxaana diyaaraddan isbuuc waliba ay samaysaa 1000 duulimaad oo caalami ah. Nambarka 5aad All Nippon Airways Japan waa diyaaradda ugu weyn waddanka Japan waxaa la sameeyay 27 Diseembar 1952 waxaana duulimaadkeedii ugu horreeyay ay samaysay 1953 iyadoo isaga kala gooshtay gudaha waddanka Japan Osaka iyo Tokyo. Cathay Pacific Airways Hong Kong oo la sameeyay 1946 waxay u kala gooshtaa 60 dal oo dunida ah. Singapore Airlines diyaaraddan Singapore waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu wanaagsan dunida waxaana ay duulimaadkeeda bilowday 1972 waxayna u kala gooshtaa dalal badan oo caalamka ah. Qatar Airways diyaaradda Qatar Airways waxaa la aasaasay 22 November 1993 waxaana ay duulimaadkeedii ugu horreeyay samaysay 20 January 1994 waxaana diyaaraddan loo aqoonsaday tan ugu wanaagsan sanadkii tagay ee 2018 iyadoo mar kale soo gashay kaalinta 2019. diyaaradda Emirates ee Imaaraadka Carabta waxaa la sameeyay 1998 waxaana duulimaadkeeda ay bilowday 1999.